cabdirashiid cumar qorkiciisada lahaa caddaan iyo madowba calaanba lagu sidaa carri buntland oo dhan waxaan kaga tumay cayaar barafasoor caano cilmigiila ku shubay caradiyo nabada caaqilow ku soo dhowo mas-uuliyiin ka tirsan Puntland isimo nabadoono waxgarad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa si wada jira garoonka diyaaradaha ee Boosaaso ugu soo dhaweeyay boqor Cabdirashiid Cumar Ismaaciil kaasoo in muddo ku maqnaa dalka dibadiisa soo dhaweyntan oo ahayd mid si weyn loo soo agaasimay ayaa markii uu boqorku soo gaaray garoonka diyaaradaha waxa uu salaan la dhex qaaday qaybaha kala duwan ee bulshada ka qayb qaadatay soo dhaweyntiisa qaybta VIP-da ee madaarka Boosaaso ayay si wada jir uga hadleen mas'uuliyiinta ka tirsan Puntland isimada nabadoonnada iyo waxgaradka ka qayb qaatay soo dhaweynta boqorka waxaana si wada jir ugu soo dhaweeyeen magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari aad baan ugu faraxsanahay in boqorka maanta soo gaaray aan xaafadiisii ku soo dhaweeyno gurigiisa runtii mahadcelin maartay waa aad baan ugu mahadcelinaynaa intii ka soo qayb gashay soo dhaweynta boqor soo dhawow muddo badan baa maqnayd 2 sano baan u malaynayaa marka ku soo dhawow gurigaagii iyo beledkaagii iyo insha Allah bilaa karim waa iswareysan doonaa hadduu alle maalmahaas waxaa sharaf weyn noo ah in halka ku soo dhaweyno maantay boqor Cabdirashiid boqor Cumar Ismaaciil Saweyne oo muddo dalka dibadiisa ku maqnaa waxaanu leenahay boqor ku soo dhawow dalkaagii ku soo dhawow dadkaagii magaaladaadii iyo gobolkaagii iyo waddankaagii aad iyo aad baan ku soo dhaweynaynaa inta iyo in ka badan baa istaaheshaa waxaanu ku leenahay mar labaad iyo mar saddexaadba boqor soo dhawow waanu ku sugaynay waana noo timid ilaahay subxaanahu wa tacaala nabad buu kugu keenay annaguna diyaar baan ku ahayn waxaan leenahay soo dhawow xubin firfircoon oo isimada ku soo biirtay oo aad muhiim u ah baa tahay waxaan leenahay boqor soo dhawow mar koowaad iyo mar labaadba wixii warax iyo wixii arina waxaynu ku kala qaadan doonaa insha Allah markaynu dhulka tagno oo magaalada tagno soo dhaweynta boqorka oo ina ka maqnaa hadda aan filayo inuu maqnaa sanad iyo wax dheer oo dibadda jiray haddana in soo noqday oo dhulka soo gaaray isagoo u yimid shacabkiisii iyo dadkii uu sii iyaguna ay sugayeen boqor Cabdirashiid Cumar Ismaaciil oo isna ka hadlay kulankii lagu soo dhaweynay ayaa marka hore taxsiin u diray Allah u naxariistay Dr. Roble oo ku geeriyooday magaalada Muqdisho waxaana uu sidoo kale u mahadceliyay cid walba oo ka qayb qaadatay soo dhaweyntiisa ka taxsiinaya geerida ku timid Dr. Ismaaciil Ciise Roble Dr. Ismaaciil Ciise Roble oo ahaa dhakhtar runtii dadka iyo dalkaba aad ugu soo shaqeeyay muddo badan oo soo adeegay geeri waxa way aad u xanuun badan waxaan dhammaan wadda Soomaaliyeed uga taxsiinayaa geeridaas xanuun kale oo ku timid doctorka dhammaan wadda Soomaaliyeed ehelkiisa iyo qaraabada waxaan Ilaahay uga baryayaa inuu jannada firdawsa ooygiisa ka dhigo in Ilaahay adeega hufnaa oo dadka u soo qabanayay abaalkeeda oo jannada uga dhigo inta kadib waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dhammaan ciddii ka soo qabanqaabisay munaasabadan soo dhaweynta aad ka qurux badan sida sharafta leh iyo maamuus kale ay ugu soo dhaweeyeen maantay runtii mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad iyo mar shanaadba waan idinka mahadcelinayaa safar muddo qaatay ayaan ku maqnaa oo wadamo badan aan ku soo maray maantana waxaan u imi inaan markaa bulshadayda iyo dadkayga aan la wadaago bal sida xaaladaha isbedeladu socda ay u socdaan inaan kala war qaadano dadka inaan dhex galno halaas baan safaradeennu ay ku salaysan yihiin Cabdiqani Boosas BC Boosaaso anigu waxaan isticmaalaa Samtel isagu ma uu isticmaalo Samtel anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma samayn karayo warmaahe run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaash bishii oo dhan waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah caadi ma aha maxaad mar hore igu sheegi weyday fikir